sheekhu waxa uu ka warramaa qiso runtii aad u xanuun kulul oo uu goobjoog ka ahaa oo halkaasi ka dhacday. waxa uu yidhi mid ka mid a walaalaha Afghanistan ayaa ehelkiisii oo dhan waxa uu isugu geeyey guri, kadibna waxa uu u baxay inuu u doono cuntadii ay cuni lahaayeen. intii uu ka sii maqnaa ayaa waxaa ku dhacday duqaymooyin, halkaasi ayaa dhammaan ay ku geeriyoodeen. markii uu soo noqday ayaa uu arkay waxaanu markaasi tiriyey kalimaadkan. تقول غالتي دا درخوك خون شهيدون قل شد أفغانستان الله أكبر الله أكبر هم سنگر بشنو في يومي من رو غير انتقامي من رو الله أكبر الله أكبر. kalimaadkan iyo macnahooda sheekhu isagoo ka warramaya ayaa wuxuu yidhi waxay ka hadlayaan qiimaha ay leedahay iyo fadliga iyo wanaagga ay leedahay qofku inuu Ilaahay dartii u geeriyoodo oo u dhinto.